asxaabta meel walba oo aad joogtaan waxaan idiin soo gudbinaynaa gabadhi taariikhda ku lahayd sheekadii xiisaha lahayd ee anaa iin qabo haddana eedan walaasheen Muna oo inaga codsatay inaan idiin soo gaarsiino fariintan ay idinkugu tala gashay oo isugu jirta mahadcelin iyo waana ayaa ugu horreyn ku bilowday salaan sharaf guud iyo in ay mahadi oo idil ay alla u sugnaatay allahaasoo asture ceebaheeda wadadii hanuunkana ku arsaaqay wixii gaf ahaana ay uga toobad keentay kana rajaynayso in uu toobadeeda ka aqbalo una dembi dhaafo midda xigta waxa igu qasbay in aan qisadan idinla wadaago waa anigoo inta badan la socday qisooyin hore oo isla beejkan ka baxay oo ay gabdho walaalahay ah lahaayeen kuwaasoo aan wax badan ka faa'iiday balse u badnaa kuwa ka hadlayay dhankooda wanaagsan oo keliya maadaama uu qof walba jecel yahay wanaaga iyo inuu bulshada u soo bandhigo dhankiisa san si uu sumcad ugu yeesho bulshada dhexdeeda taasina aysan wax faa'iido ah u siyaadinaynin bulshada iyo qudhiisaba balse loo baahan yahay in mararka qaarkood bulshada lala wadaago waxyaabaha xunxun ee ku soo mara maadaama qof waliba uu leeyahay dhan xun oo qayb ka ah dhiganihiisa taariikhda ujeedkaygu maaha in qof waliba uu isfadeexeeyaa adigoon isfadeexeen ayaad haddana ka hadli kartaa sida aan aniga sameeyeyba dhibta ku qabsatay taasoo bulshada u noqon karta indho iyo mid ka badqabta wax walba oo xumaan ah cibro iyo waanana u noqon karta mar walba oo aan bulshada uga sheekayso wixii xumaa ee ku qabsaday waxa si dadban u waaninaysaa ayaga oo dhan qof walba oo ayaga ka mid ahna maskaxdiisa ayaad ku soo dhici doontaa mar waliba oo uu ka fakaro amaba uu xalmoodo wax beri dhib u keeni kara taasoo laga yaabo in sababtaada darteed uu uga baaqsaday arrinka oo adigana kuu noqon kara mid lagaaga cafin doono dembiyadaadii hore islamarkaana lagugu abaalmarin doona ajar la mida kan uu helay qofkaas dembiga ka baqsaday taasoo guul aad u weyn adiga ku ah bal qiyaas bulsho intaas la eg haddii ay keliya dhowr qof oo sababtaada owgeed uga baaqsadaan xumaan ay ku dhici lahaayeen khayrka iyo wanaaga uu alle kugu abaalmarin karo taasoo adduun iyo aakhiraba kugu filnaan karta marka xaqiiqda laga hadlana ajarka iyo wanaaga ugu badan waxaa laga helaa in kelmadba ha noqotee aad bulshada oo dhan gaarsiiso wax uu alle ka raali yahay sidaa owgeed waxaan idinku waanin lahaa in aad ka hadashaan dhibaatooyinka aad nolosha kala kulanteen si ay kuwa idinka dambeeya ugu noqoto waayo aragnimo midda xigta waxaa laga yaabaa in wadadii aan soo qaaday mid la mid ay maanta ku taagan yihiin gabdho badan amaba ay jiraan qaar doonaya in ay sidoo kale sameeyaan jacaylkuna uu indho saabay waxaan u sheegayaa ayagana in jacaylka uusan wax qaldan ahayn xaqna aad u leedahay in aad wax jeclaato laakiin ay waajib kugu tahay in ugu horeyn ficil walba inta aadan ku dhaqaaqin ka hor aad dhanka diinta ka soo eegto indhaha aad ku socotana aad diinta ka dhigato markaasoo uu qof bani aadam ah iska daaye uusan shaydaanku xitaa kugu soo dhiiran karin waxaan idinku waaninayaa in aad mar waliba xakamaysaan dareenkiina si aad sharta uga badbaataan waxaana idinkula talin lahaa in aad u guursataan sida ugu dhaqsiyaha badan ee macquulka ah maadaama ay qadartu xag alle ka qoran tahay taasoo ah badbaadada diintaada dadkaaga iyo sharaftaadaba qof walba oo muslim ahna farjigiisa xafidaysa maadaama sinadu ay ka mid tahay dembiyada ugu waaweyn ee naarta lagu mutaysto sidaa awgeedna waxaan alle ka baryaynaa intii ku dhacday sinadaas uu demdigooda dhaafo ayagana looga baahan yahay oo keliya in ay la yimaadeen toobad sax
inta aan weli ku dhicinna uu alle ka badbaadiyo sharteeda iyo xumaanteedaba allah ina wada xafido dhammaanteenba. ugu danbeen waxaan doonayaa in aan wiilasha u sheego in haddii la xisaabiyo dareenka ay dumarka ka dareen badan yihiin ragga, laakiin aysan qofka dumarka ahi marnaba ku dhicin in ay dareenkeeda xumaan la raadsato, balse ay inta badan dhankiina kaga timaado waxyeelada ayaguna ay idinkaga ogolaadaan. maxaa yeelay qof haraadan biyaha uma eega wasaq iyo nadiifka ay yihiin ee waxa keliya ee u muuqda ayaa ah siduu haraadka uga bixi lahaa. ilaa qofka caqliga leh oo isxisaabiya maahana iyo sidoo kale naxariista faraha badan ee alle ku beeray quluubtooda awgeed ayaga uu shaydaankuna ilowsiiyo inay ka fakeraan sharaftooda iyo diintoodaba intii alle xafido maahane. marka wiilasha walaalahay ah meel walba ay joogaan waxaan leeyahay haddii aad muslimiin tihiin indhihiina diinta ku eega ulana dhaqma dumarka waxa ay diintaasi idin farto. haddii ay tahay adeegayaasha shaydaankuna waxaan alle weydiinaynaa in shartiina uu ka nabadgeliyo gabdhaha muslimka ah idinkana uu idinka soo xoreeyo ibliiska idin duufsaday si aan dhammaanteennaba jannada ugu wada kulanno insha allah. halkaas ayayna iiga eg tahay anigoo aad idinkugu mahadcelinaya waana la socday kommentiyadiina. maalin walba inta i aflagaadaysay waan u cudurdaarayaa waayo waxaa qaaday cadiifada qisada waanaan cafiyey weliba si niyad ah. inta i taageersanaydna waxaan rajaynayaa in aysan xumaantii aan sameynayay igu taageerin ee ay wanaag ila doonayeen. dhammaan inta kale ee qisada akhrisatayna ama dhagaysatay waxaan leeyahay mahadsanadiin. waan jeclaa mar waliba inaan kommentiyada idinkaga soo jawaabo, laakiin si dirqi ah ayaan isku celin jiray maadaama aan idiidanaa inaan bulshada ku milmo, waayo waad ogtihiin in bulshadeena ay qofka wanaagsan xumaan la raadiyaan kan xunna iskaba daad warkiisa. taas ayaana ii diiday inaan idinla falgalo. run ahaantii adinkoon i ogeen ayaan haddana idin walaashada jacayl aan idin qabo darteed ayaana fariintan idinkula wadaagayaa. waxaan dareemayaa in aan idinku dheereeyay walow aan weli jeclahay inaan idinla sii hadlo, haddana waxaa run ahaan in hadal badan uusan wax muhiim ah lahayn. waxaana isku dayi doonaa inaan mar waliba fariin sidan oo kale ah aan idin soo gaarsiiyo anigoo idin soo marsiinaya beejka bogga geeraarada iyo Dera News oo aan abaal aan la soo koobi karin u hayo. aadna aan ugu mahadcelinayo dhammaan howlwadeenadooda iyo qoraaga qisadayda iyo Dera News habka quruxda badan ee codkooda ugu codeeyeen, kaasoo igu dhiirageliyay inaan uga waramo waxyaabihii aad soo aragteen oo ay adag tahay in qof dumar ah ay ku dhiirato ka hadalkooda, asagoo in badanna isku howlay inuu ilaaliyo xuquuqdayada iyo sharaftayda. si guud baana idinkugu mahadcelinayaa dhammaantiinba. guul ayaana idin rajaynayaa goor walba insha allah. wabillaahi towfiiq. asxaabta waxaan dib idinkugu bilaabi doonaa sheeko midan oo kale ah oo aad u xiiso badan, laakiin daawashadiinu waa ay yar tahay. dadka kale uma iidan gudubani si ay uga cibro qaataan sheekadan. fadlan isku daya in aad sii sheergaraysaan si ay dadka kale u arkaan ayna u soo gudbiyaan fikradihiina. waxaa kale oo aan idinka codsanaynaa haddii aad haysaan qiso sidan oo kale ah noo soo gudbi si aan ula wadaagno bulshada kale. ha u malanin xumaan, waxaad badbaadinaysaa dad fara badan oo dhibaato badan haysato oo garan lah hab ay ku soo gudbiyaan. mahadsanidin. waxaana mar walba codkan quruxda badan idinkugu luuqeynayay Dera News.